أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الكائنات الذي لا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا أين يكون، الذي احتجب في حجاب جلاله فلا تراه العيون، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، ثم أما بعد أيها المباركون والمباركات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد التحية maalintan oo kale oo axadda aan bahabeenkan camal asiinta soo galayso dunida meel kasta ka joogtiin waqtiyadu waa kala duwan yihiin dabcan, laakiin insha Allah taala waqtigan ayay anaka noo suurto gashay adinkuna khayrka ka qayb qaata adaalu ala khayri ka faa'ilihi, qof kasta intii uu sheer garay karo intuu sii gaarsii karo khayrka la sii gaarsiyo. haduu ilaahay yiraahdo cashirkeena ayaa maanta meeshan ka galeynaa sida noo qoran kitaabkii sayidi imaam dahawi ee aqeed dahawiyada ah abu jacfar dahawi oo ku faryareystay mukhtasarka ay matniga gaabnaay ee haddana macnihiisan waa cilmul kalaami oo aad u fara badnaa iyo sharxiisa ayaan insha Allah taala intuu ilaahay naga waafajiyo karaankeena ka sheegsheegayna. sida noo qoran waa cashirkeeni lixaad, waxaan noo dhinaa doonta haduu ilaahay yiraahdo laba cashir kaliya saan ku wadno. ومؤلفك رحمة الله عليه أبو جعفر وحوير ونقول وحان دهينا وأسيقا يسلفك كوري سيدا أبو حنيفة إيو رقو كتاكو بلاويس كسو حصي رقا سالا ميدا إيو لبديسي صاحب أبو حنيفة إيو لبديسي صاحب إيو وحوير آنيقا إيو جميع عديد وحان دهينا ورا إمامك ونقول وحان لأنه يري إن الله ألا اتخذ وحو كدكتي إبراهيم نبي الله إبراهيم عليه السلام خليلا وذي سأن أكسونها نبي الله إبراهيم عليه السلام وأفضل الأنبياء بعد نبي الله محمد. نبي الله محمد كلاه كفضل بدن أنبياء إلهي وبدين وحان وفضل بدن شان إلى باتنك قرآن كلو الشيء شان إلى باتنك أنا وحا إلهي كسي دورتي شان تقول العزمك محمد إبراهيم موسى كليمه فعيسى فنوح هم العزم كلهم. نبي الله محمد نبي الله إبراهيم نبي الله موسى نبي الله عيسى نبي الله نوح. marka nabi ibraahim daam qasho waa xaaladu adagtahay afdal khalqi waaye bacda nabiy ilaahi maxamed alayhi afdal salaati wa atammu tasliim. ilaahina wuxuu ku sharfay inuu yahay khaliil oo nas waaye wattakhadha allahu ibraahima khaliila wa kallama allahu allah subhanahu wa ta'ala wuxuu la hadlay muusa nabiyullaahi muusa hadda ka sheekeen asigan la marka saddexaad ku jiro ambiyada fadligood ilaahi fadligiisa iyo masjidiisa asaa qofku horaba u beego. نبي موسى والله باقي أنبياء ساء فضل بدن بعد نبينا محمد وإبراهيم الله بزاك فضل بدن. وكلم الله والله سبحانه وتعالى ولهض لي موسى نبي الله موسى ولهض لي تكليما لهضلتان مصدر كاس محله سوء عرشي إلهي نبي الله موسى ولهض الله كفرا تكليما وحلو كاني إن لا أتكايو وركاسي إنه حقيقية هي أو سن مجاز هين مجاز هان وإلهي كل هذا لي حق مال لهم وحقيقه الله سبحانه وتعالى إنه لحظ لي نبي الله موسى عليه السلام. شيخ مرك أنا كون الله دردارما وحور إيمانا رمين ونؤمن وين رميننا إيمانا رميننا وتصديقا رمين هذا نوسوع الشيء ونصدق وين رميننا تصديقا رمين أيان رميننا وتسليما ونسلم وين نبتقلنينا تسليما نبتقلين هدي اللي قوله وذاين ماذا udhaxayso Allah subhanahu wa ta'ala iyo khaliilkiisa nabi ibraahim intay la ekeed la adina nabadgeli warkaas rumay inuu khaliilkiisa ahay hadan nabadgeli ha barbaarin sidii bidcadi wax kasto oo ina sifaadka ilaahay uga taas ku dayin hore sheekh uga soo dardaarmay walaa yuhiiduna bihi ilman wax liiri oo Allah subhanahu wa ta'ala cilmigooda guntiisa inuu ogaado oo ugu tala galay adoo makhluuq oo miskiin oo wixii hadda lagu sheegay iloobay wixii dhamaan ogaana hadaa tiraado waa marka been al-kufri wal iimaan tagiis waadi isku riday marka oo loo qoon oo gaalnimiyeen oo islaamnimiyeen kala kasin marka iimaan rumayn oo leeyahay imaamka ayaan rumaynayna wa nu'minu iimaanan wa tasdiiqan wa nusaddiqu tasdiiqan wa tasliiman wa nusallimu taslima warka sheekh wacdiyan umaleha mu'allif wuxuu leeyahay marka wa naqulu waxaan leenahay nu'minu waxaan rumaynayna hadana bil malaa'ikati al-kiram malaa'ikta Allah ee sharafta badanna waa rumaynayna وملائكة إلهي مجرتا أي مجرتا دي شك إكاقلو إيمان كاقي
meeshuu ka baxay waay wax aad diidi karta male malaa'igta ilaahay xaan u arki waaye maa arko haddii itus itaabsiye haddii aan arkin ma rumaynayo warkaas warkii gaalada waay war islaam maahan raqiibi catida garbahaaga saaran haddana garbahaaga haddaa gacanta usii dayso garbahaaga waxaad ka dareemi kartid male garbahaaga hawaa saaran maahane malaa'ig maahane waa wax saaran male ujeed adiga adina aragti laguma talagelin saasaa la rabaa inaa u rumaysay raqiibi catida u rumaysay qabriga haddaa gasho munkar iyo wanakiirna imaanayaan wahlo khabuurka iyo su-aal la yeelanayaan interview ay ka qaadayaan saasaa la rabaa inaad rumayso in jannadana uu joogo ridwaan naartana uu joogo maalik saasaa la rabaa inaad u rumayso yowman maa nafta inuu kaa qaadaya casraa-iil saasaa la rabaa inaad u rumayso casraa-iil saaxiibadiis inay joogaan siday sayidunaa jibriil calayhi salaam oo ah mucallimu alambiyaa waa inaad rumayso wakadalika mika-iil oo alla subxana wa tacaala u wakiisho roobka iyo dhulka nabaataad ka soo baxay wakadalika casraa-iil aan dhaho oo nafta qaadana waa inaad rumayso israafiil oo nafta dadka ku afuufaya waa inaad rumayso buunka qiyaamahana afuufayo marka 10 malaa'ig oo malaa'igta ilahi ugu fadli badan oo qofka muslimka inuu barta laga raba inay ka mid yihiin waa sayidunaa jibriil ugu fadli badan mika-iil casraa-iil israafiil raqiib iyo catiid munkar iyo nakiir maalik iyo ridwaan 10kaas malag qof kasta waa inuu yaqaano xifdiyo marka malaa'igta ilaahay ma jirtaa iyo ma jirta lagama yeelaa malaa'igta ilaahay nebigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam habeenkii leelmiyey oo arkay baytulmacmuurka markuu ka sheekeynayo 70,000 oo malag inay maalin kasta gelayaan ay ku dukanayaan mar dambe ay ku soo noqonayaan nebigu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam laa yaclamu cadadahum ila allah tiradooda cidaan ilaahay ahayn ma oga wanu'minu waxaynu rumaynaynaa bilmalaa'ikati alkiraama rumaynaynaa wannabiyiin nebiyaashana waa rumaynaynaa ambiyada ilaahayna waa rumaynaynaa waay walkutubi kutubti ayaan rumaynaynaa kutub waa jamcu kitaab kutubtina waa rumaynaynaa kutubtaasoo almunazalati lasoo dejiyey cala almursaliina ambiyada ilaahay mursaliinta lasoo dir lagu soo dejiyey wanashadu waxaan qiraynaa annahum mursaliintaas rususha ah kaanuu inay yihiin cala alxaqi xaqa dushiisa inay yihiin xaqaasoo almubiin ee cad wanusami waxaanu ku magacaabaynaa ahla qiblatina dadka ahlu tawxiidka ah ee salaada u dukada qiblada ahla qiblatina uu leeyahay imaamka abu jacfar daxaawi wanusami carabka wuxuu ku hadla ahlu sunna waljamaca selaf saaniay qabaan marka adiga selaf wuxuusan qabin haddaa qabto haddana selaf aa sheegatana waxaa waaye waa warkaaga waa cad yahay in selafna ay wado mareen adiguna wado qaldan aa ku socoto markaas selaf say u hadlayan dhegeysta marka selaf ku caqiida ma ahayd markaas dad abujahl aadiin abujahl ba xilliga selaf uu jooga xilliga selaf dadka joogay iimaanka lahay saani u hadleen abu jacfar daxaawi waa ka soo hadalna inuu selaf ahay wuxuu leeya wanusami waynu magacaabaynaa ahla qiblatina qibladeena ehelkeeda waxaan ku magacaabaynaa muslimiinaan ku magacaabaynaa mu'miniinaan ku magacaabaynaa muslimiina mu'min isku mid way haddana uu kasii bedelay imaamku waxba kama tegin waxaa ku cad marka qofka hadduu ahlu qiblo yahay hadduusan caddaysan asaa keeni doono gaalnimada adiga asagoo dukanayo oo waxa maanta ka muuqdo qofkaan yihiin islaamnimo wax gaalnimoa afkiisa kasoo mar aadan ogeyn inaad gaalnimo ku qadafto oo kula degdegto qaladkeeda leeda iyo culayskeeda gaalnimona sideeda meel banaana ma dhacdo faqad baa axaduhum wa nabi alayh salatu wasalaam gaalnimada qofka markii ou tuuro gaalnimada qofka hadduusan gaal ahayn ay soo naqato qofkaas gaalnimo halis u naqanaa markaas faqad baa axaduhumaa labadooda midkooda gaalnimadii u laabanayn markii la yidhi culammada waxay weliba kusii tilmaamaan qofka muslimka gaalaysiiyo ee muslim gaalaysiiyo ugu dambeyntii waxaa u dambeyso khaatim xumo asaa islaam ka baxo asaa iska bixina nimankan takfiirka hadeertaan qaadna dafle ee dadka gaalnimada ku tutuurayo sheekooda sheekhulislaam iyo u yaqaana ibnu taymiya muslimka waa gaalaysii jiray markiisii hore marka dambe xaaladda ay ku xumaatane imaamu dahab wuxuu caddaynaa inuu yareeyey amba ou dhaafayba inuu dadka gaalaysiiyo aakhir xayaatihi laakiin waa mar oo midida caloosha ay ku tagtay waa oo dhaxal xun uga tegay dadkan khawaarijta ah wanusami waxaan ku magacaabaynaa dha ahla qiblatina qibladeena ahalkeeda muslimiina ku magacaabaynaa mu'miniina ku magacaabaynaa maa muddaan ku magacaabaynaa daamuu ay daa'imayaan muctarifiina ayakoo qiraayo bimaa jaa bihi nabiy nebigu wuxuu la yimid sala allahu calayhi wasalama wuxuu la yimid wa musadiqiina ayakoo wuxuu rumaynayo bikulli maa mid kastoo qaalahu nebiga ou yiri oo akhbara nebiga ou sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi
musadiqiintaasoo hayra munkiriina amba mukadibiina kolley wuxuu idin qoray ma aqaan hayra munkiriinu io qoraa musadiqiintaasoo hayra munkiriina kuwa inkiraya allah subxaanahu watacaala heyrkiis ah waayah wuxuu leeyahy mualifka wanusami ahla qiblatina waxaan ku magacaabeynaa muslimiina mu'miniina maa muddaan ku magacaabeynaa daamuu ay daa'imayaan muctarifiin ay ku qiraayo bima jaa bihi nabiy nebigu wuxuu la yimid salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh wa musadiqiina ay ku rumaynayo bikulli maa mid kastoo qaalahu nebiga calayhi salaatu wasalaam ou yidhi oo waa akhbar nebiga u sheegay hayra munkiriina musadiqiintii uu celiyaha markaas iyo muctarifiintii kuwaasoo hayra munkiriina kuwa inkiraya heyrkood ah walaa nakhuudu le mualifka ma dabaalanayno fi llaahi fii diin illahi ilaahay diintiisa dhexdeeda ma dabaalanayno walaa numaari mana ku murmayno fii diin illahi ilahay diintiisana ma ku murmayno maxaa laga wadaa yacni diinta ilaahay haddii laga been sheego muran waa gele doodna waa gele musaabaqa iyo munaafasana waa gele laakiin anaka baadil ahaan iyo buuq ma raadsayno dheh baadilku diinta ilaahay ma kula doodeyno walaa nakhuudu ma dabaalanayno fi llaahi fii daati illahi ilahay daatadiisa ma dabaalanayno inaan wada ogaano wax kasta oo sifaadka ilaahay isku mashquulimayn daatada ilaahay iyo afcaasha ilahay ma ogaa karno walaa numaari wuxuu dhahay mana ku murmayno fii diin illahi ilahay diintiisana ma ku murmayno si baadila maugu murmayno xaqaan ka sheegaynaa u dhaha waana ka gaabsaynaa wixii baadil wada waa ka celinaynaa waay walaa nujaadilu mana ku doodeyno fi lqur'aani qur-aankana ma ku doodeyno si baadila maugu doodeyno waa qur-aanka wanashhadu waxaynu qiraynaa annahu qur-aanka kalaamu rabbi alcaalamiina makhluuqa dhan rabbigooda hadalkoodii inuu yahay aan qiraynaa nazala bihi aruux oo la soo degay sayidunaa jibriil waay aruux ruuxaasoo alamiin ee la aaminay sayidunaa jibriil noo la soo degay facallamahu sayidunaa jibriil noo baray sayida almursaliina mursaliinta dhan boqorkooda muxamedan ah sala allahu calayhi wasalama wa calaa aalihi ajmaciin wuu qur-aanku kalaamu llahi tacaala ilaahay hadalkiisi waa yiri ilaahay hadalkiisa waay laa yusaawiihi shay-un shay u dhigmana ma jiro oo min kalaami lmakhluuqiina makhluuqa hadalkooda ah wax lalaba bardhigi kara ma leh kalaamka ilaahay walaa naquulu mana dhehayno bikhalqihi ilaahay waxyaabaha abuuruu ka mid yaha ma dhehayno kalaamka ilahi waa kalaamka ilaahay min sifaati illahi oo ka mid yahay sifaatka ilahayna waxaan soo qaadana kullina yihiin qadiim azali abadi ah kalaamka maalinaan ka sheekeyna keligiis marka inta yartaa meeshaan soo dhex gasho si duuduub in looga hadlo waay maxaa jirto kalaamka sidiisaba amba cilmulkalaamka waxaa la dabaalo karaa dadka markay joogaan fii maqaami tacliimi maxaadarooyinka xataa dadka badanaa ma ku fahmi karaan waa kusii wareerayan dadka cawaamtaane waxay halis u yihiin inta wareeraan ay qar ka dhacaanba ay dhahaan waxaan aan la fahmeyn oo saan loo silcihaa oo saan loo yeelaa maxay tahay sayidii imaamu alghazali wuxuu ka alif kitaab la dhaho iljaamu alcawaam can cilmi alkalaam dadka caamada in laga xakameeyo lijaam waa taqaanaa waxaa waaye dameerka geedka lijaanka la geliyo oo ka wadaa marka waa in laga xakameeyo dhahay can cilmi alkalaami cilmilkalaamkan caqiidadan isku naqnaqanayso yacni oo gunteeda la gaareen cilmigiis waa in laga xakameeyo dhaha cawaamta laga qabto waxaan xaba kama taqaanid ka aamusin la dhaha waa weri marka dadka ay kuwa cawaamahayay bidcadii waalayaan kadib waxay la soo gelayaan wax kasta cilmulkalaamki asee dadku gaalaysi hayaan gab ay koole halisteeda leedahay waxbarashaa ka horeys intaa cawaamta ka mid tahay oo aad tahay maaragtay midaan culammada ka mid ahayn waxyaabaha qaar inaad ka hadash ehel umahid binaa ka aamustaroon marka sheikha idab ahaan hadduu hadla kalaam wuxuu hore uga soo hadlay wuxuu yiri walaa naquulu mana dhehayno bikhalqihi ilahay khalqigiisu ka mid yahay kalaamka ilahay ma dhehayno walaa nukhaalifu ma khilaafayno ilan zamankaas muctazile iyo balaayo dhama dhoobneed iyo qadari iyo waxaasuu ka diga hadda bidca waxaaba joogto wixii oo dhan ba isku shamlisaba wixii oo dhan ay isku fuuqsadeen waxay ka tageen male qolo kasta balaayadii ka soo qaateen walaa nukhaalifu mana khilaafayno jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadoodan ma khilaafayno walaa nukafiru axadan axadna ma gaalaysiinayno axadkaasoo min ahli lqibla ahlu qibla ka mida axad qiblada u jeesanayo faasiqu uu naqon karaa bidciu naqon karaa adig gaalnimaha kula degdegin saas kale xoglen walaa nukafiru ma gaalaysiinayno axadan axadkaasoo min ahli qiblati ka mida bidanbin bisababi danbin dembi sababtiis ku gaalaysiimayno maa muddo lam yastaxil lahu ousan xalaalaysan hadduusan xalaalaysan ma dhehayno qofkan dembiyo galay waa gaal ma dhehayno laakiin waa aragna dad dhahayo qofkan dembiyo galay waa gaal
dembi asoona gelino qofku wax jaa-isa sameeyey waxaa leeyahay ambiyada ilahay ku tawasula mi aha ilahay ma ku tawasulhaa waa gaal hadda meesha see maraya bidcada inay isticmaalaan kuntu nayaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuha ur nabiga alayh isalatu salaam haddii ambiyada ilaahay saalixiinta qabrigooda aad ziyaaratani waa lagu gaalaysiiyaa bidcada waxay sameynayaan bal fiiri bal fasaadkaas gaalaysiinta furuhay ka saaran tahay ahlu sunna waljamaca saas ma qabto intabihu gaalnimada ay la ordayaan ayaka faqad baa axadu taas waxaa dhib ugu filan ayaga ku laabanayso horta dhibay ugu filan tahay waxaa kaloo dhib ugu filan caqaa'id xumada ku jirto iyo ilaah cirkuu jooga ay ka dhib ugu filan maba u baahna ayka in la gaalaysiiyo walaa naquulu ma dhehayno anakane haddaan ahlu sunna nahay laa yaduru ma dhibo dembun dembi maca aliimaan iimaanka macigiisa liman qof wax uma dhibo mankaasoo camilahu sameeyey dembigaasi qofkii dembi gale ee dembi sameeyey haddou iimaan leeyaho muslim yahay dembigaas waxuu ka dhibaayo male ma dhehayno saas kale ma jeedno laakiin waxaan leenahay qofkan dembiga ou galay looma gaalaysii karo warka inuu kaliirya umaleha tusaalean qofka riba u qaatay ilahi muxuu leey fa'danuu bixarbin min allahi wa rasuulihi soo kabaa'irta ka mid maaha kabaa'irta ka mid tahay dhihi mayno dembigan waxuu dhibaaya male laakiin haddana inta la soo boodna dhihi mayno hebel waa gaalo riba u qaata dhihi mayno in la fahma umaleha taas waxaa loo qiyaas qaadan kara qof hadduu zinaysto hadduu khamre cabo hadduu waxxado hadduu qof xanto hadduu qof dilo kulli waa looga qiyaas qaadanaa 35 dembi a jirto kabaa'ira oo inta hadda sheega ka mid yihiin wuxuu leeyahay marka walaa nukafiru axadan axad ma gaalaysiino min ahli qiblati ka mida bidembin bisabab dembi ku gaalaysiimayno maa lam yastaxillahu hadduusan xalaalaysan oosan dhin waxaan xalaala iyihin qofka maalan wuxuu yihi khamradii aayad nasa kuma soo degin oo ilaah yihi inama alkhamru walmaysir waalansaabu walajlaamu rijsun min camali shaydaani fajtanibuuh amarkaasaa lagu nahiyey oo lagu xarimay hadduu qofka dho marka khamrada xalaal hadduu dho qofka asoo og in fajtanibuuhu ilaah yihi qofka diinta ka baxaa ma xalaalaysan kara qofki laakiin shaydaan ay qaado waa iska caba hadduu yihahdo adig gaal waa ma dhihi kartid walaa naquulu mana dhehayno laa yaduru wax ma dhibo dembu dembi wax ma dhibo macal iimaan iimaanka micigiisa liman qof wax kama dhibo mankaasoo camilahu dembiga sameeyey waxay ka dhibaysa male wax horbaa samey dhihi mayn iimaan uu leeyahay laa iimaan ma leedaha ilahay adeec wax dembigaas ku sameyn waajibaadkan la imo wanarjuu waxaan u rajaynaynaa lilmuxsiniina muxsiniinta waxaan u rajaynaynaa muxsiniintaasoo min almu'miniina mu'miniinta ka mida an yacfuwa canhum allah subxaanahu wa tacaala inuu iska cafiyo aan u rajaynaynaa dembiga inuu ilahay ka dhaafo wayudkhilahum allah subxaanahu wa tacaala inuu geliyo aljannata jannada inuu geliyo allah subxana wa tacaala biraxmatihi bisababi raxmatihi naxariistiisa sababteed inuu ilaahay ku geliyo u rajaynaynaa walaa nuqaniduhum mana quusinayno oo dhihi mayno dembigan aa gasheen ilaa wila waa ladiin cadaaba xataa dhihi mayno iska dhaaf gaalnime imaamka fiir asluubka ku hadla saas ma dheheen oo dhah waayah walamnu ammaan gelin iyo wal iyaasu quusitiino yanqulaani labadaba way raraan oo way ka bixiyaan can milati lislaami islaamka diintiisa dad ka bixiyaan qofka hadduu dhaho yacni aniga aaminaan ahay allah subxaanahu wa tacaala aniga waa i aamin yeelay firqadeedu waa aamin yeelay jamiicadeedu waa aamin yeelay oo aamin lee ka hadlaayo waxay rabaan sameyn uu leeyahay amba quusitiino uu joogo uu leeyahay dadkaasi dadkaas ilaahay naxariistiisa arki maan walcadaaba ou istaago qofkii imaamku wuxuu leeyahay yanqulaani labadaasba way raraan can milati lislaami diinta islaamkay ka raran arrintaasna aad ay u badan tahay arrin halis ah waay waxaadan ogeyn lama dabaasho qofka qaatumidiis meesha ku dambeynayso ilahay bisa og subxana wa tacaala cilmiga ilahay lama fargasho karo inaa marka qof tiraahdo anaa ku aamin gelinayo amba aad tiraahdo may adiga raxmadda ilahay arki maysid halisteeda leeda waayahay wa sabiilu lxaqi waddada xaqa ah ayaa baynahumaa labadooda udhexayso dha marka amniga wa sabiilu lxaqi waddada xaq ahne baynahumaa labadooda dhexdooda oo maxay tahay bayna alamni walya'si quusitiinna ha gaarin amnina ha gaarin adiga maxay tahay markasta waxaa waaya ilaahay naxariistiisa inaa rajaysaa lagaa rabaa ilahayna aa ka cabsato cadaabkiisa qofka muuminka dhabta ah waa nuucaas sayidii imaamu shaafici markuu sakaraday waxaa lihi bal xaalkaaga ka waran khayr badan oo lagu tabaa weli ilahay u ahay raxmat ullahi caleyhi wamakfiratuh markaasuu wuxuu dhahay ilaahay fadligiisa hadduusan igu cafin ounan jannadiisa igu gelin wuxuu dhaha waa liya cabsadaa man imaamu shaafici
فما بالكم نحن محنا أنا كمرك إمام الشافعي أنا كدي ميزان لا صاروا نحن لا شيء أحب مني إمام الشافعي أساس لهاي أنا اللي عبس ذا وليه رحمة الله عليه ومغفرته تواضع أولها إمامكم صالحينتي أريد إلى يوم هاي من لدن عسره إلى يومنا هذا علمي يسوء إلى نوع أنفعي إلى كجزيء وحور وسبيل الحق وضد حق أنا بينهما وبين الأمن واليأس انتو لحي سواي لأهل القبلة حالي وهات أهل القبلة أهل القبلة أطاي ولا يخرج العبد ويها ضونك كم بح من الإيمان إيمانك كم بحو إلا بجحود ما شيء ديس إنه قبح معنا ما قاسو أدخله شخص يقلي فيه في الإيمان إيمانك قلي إيمانك هو المحاك سوق قلي لا إله إلا الله محمد رسول الله سوق قلي قفك التوحيد كدي أو ديدو قفك إسكبح شيء دين إسلامك ساسو مؤلف كلي هوا والإيمان إيمانك هو إيمانك والإقرار قيرتان باللسان عرب كلا قيرو والتصديق رومان أو بالجنان قلبك لغا رومان وإيمانك يودا طريقا أو مرايو سيدي أبو جعفر الضحاوي رحمه الله رحمة واسعة وطريقة يكتغين ما تريدي ودن طريقة سيكتغين ما تريدي أشاعرنا إسلا عقيدة دحديدة وحيابها غريبات كأسكو مهستان لكن وحي يرير أكفامي سائن أي كوكالة تكسينين لكن لبضبا ولبا قول أو صدقية وايه وجميع ما شيء دمانتي صح عن رسول الله إلهي رسول كيس حقيس كأن صحي صلى الله عليه وسلم ومن الشرع الشرعي والبيان عدينتي كله دمانتي حق ودب نبي وحي كأن صحي ونبي حقيس كسقنا ذي أو شرعي أو ورعد وحصولا وحل هاي حق وورمانك والإيمان إيمان كان واحد ومد واحدة طريقة إيمان تريد يقبتها إيمانك وحوري ومد واحدة ساسو لإيمانك إيمانك وواحد أصل الإيمان إيمانك أصل كيساني سواء وحوك أجيها في أصله أصل كيسو كوجيه إيمانك أصل كيسو كوجيه والتفاضل كلا فضلت بينهم أهل الإيمان كلا فضلنا بالخشية عبسد إله لو كلا فضيله وراي والتقى لك عبسك هي ومخالفة الهواء هوذا أول خلافة لو كلا فضيله وملازمة الأولى وححبون أولى لازم لو كلا فضيله وححبون دي جوكتيان أي هوذا إسك خلافان دكاسي حال كود واتوس marka qaabkaas looga baahan yahay qofka muslimka marka maxay leeyihiin iimaanku waxaa loo qeybiyay ilaa iyo 3 aqwaal ayaa ka soo aroortay sayidi imaam Abu Hanifa iyo Awzaa'i waxay leeyihiin imaamku asalkiisu waa waaxidba kan faasiq ah iyo kan mudiica ah waa isku iimaan ilaa qofkii uu xad gaalnimo asiga raadsado kulligood hal iimaan ay haystaan qofkan kala tafaadul haystaa alla ka cabsi haystaa khayr haystaa khayrkaas haystaa qolna waxay leeyihiin iimaanka kuma sinno horta waxaana doodna laga qabin sideedaba ambiyada iyo dadka kaleeto inaysan isku iimaan ahayn wax dooda kama taagan ثانيا haddana wixii nas ku yimidne ayakana waxaa leeyahay dadkaasi waa dad badbaado iimaankooda ilaahay qabuul ugu daray oo dadkaasi waa dad tagay marka dadkaasoo kale waa la dhihi karaa amaana ilaahay geliyey هذا 10 مبشرين بالجنة أم بالنبي أنتوا بشاري سيدنا عكاشة رجل مذا رجع صار إلى أمان وقليوة ذكاس وركود والله با ضد لجور ريجنا إيمان مركا أبو حنيفة أوزاعي أساس دي دهين ضد كلو أهل خيرنا وضد كلا أي مرين وحوا يقف كستو أو إيمان إلهي أصغي أو إيمان صح هستو وحلو جبهني إنه الله كعبس لي ماذا أو ضاعد إلهي أو لازم قف كستو وقف نصيب له نعمد وينيدو إله دون كان لسي إسلام وفق لسي والمؤمنون مؤمنين كلهم دمانتود أولياء الرحمن الله رحمن كأوليدي سوى وأكرمهم مؤمنين وحقوا كرام بدن عند الله إلى أكتيسة أضوعهم كو أدي عدة بدن لله سبحانه وتعالى وأتبعهم مؤمنين كو عدة بدن للقرآن القرآن كو عدة بدن والإيمان إيمانك هو أسيغ الإيمان الرومين واي بالله إله إلا الرومين
وملائكته الله ملائكته الله رميه وكتبه الله كتبتي الله رميه ورسوله الله رسوله الله رميه واليوم الآخر ما أنت آخر الله رميه والقدر قدرت الله رميه خيره خير القدر وشره شر القدر الله رميه وحلوه قدرت معان كذا الله رميه ومره قرار كذا الله رميه من الله تعالى حق سنكات مالك اللو ذكر ملك إلهي وحوله إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آيات كله حكوا والله خلقكم وما تعملون مالك اللو ذكر ملك قدرت waayahay marka intaas in la rumeeyo ayaa la iska rabaa uu leeyahay wuxuu soo qaatay xadiidkii jibriil wanaxnu nakana mu'minuuna waxaana ku rumeynay bidaalika arrinkaasi kullihi dhammaantiis haddaan ahlu sunnanahay laa nufariqu ma kala qaadayno bayna axadin axad dhexdiis kala qaadamayno axadkaasoo min rusulihi rususha ilaahay ka mida tusaale ahaan nebi hebel maba jiraba amba nebi maahan nebi hebelna waa jiraa qofka haddii uu yidhaahdo qofkaasi waxa waaye asaa diinta banaanka iska geeyey diinti oo banaanka iska geeyey tusaalehaan wuxuu yidhi nebi nuux ma jiro laakiin nebi maxamedaa jiro qofka saas haddii oo dhaho nebi maxamedna ma qirsano waxa uu sheegayo waxba islaamnimo ka deeqi mayso qofku waa inuu wada rumeeyo ambiyada qofka wuxuu dhaha sayiduna jibriil aflagaadiya amba wuxuu ku leeyahay malag maaha waxaasoo kale halis waay marka waa inaad rumayso malaa'igta ilaahay oo ammaanto oo nabadgeliso ilaahay ammaane laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun laa nufariqu kala qaadi mayno bayna axadin axad dhexadkiisa axadkaasoo min rusulihi rususha ilahay ka mida wanusadiquhum ambiyadina u rumaynaa kullahum dhammaantood calaa maa jaa-uu bihi waxa ay la yimidina u rumaynaynaa wa ahlulkabaa'iri dembiyaasha waaweyn ehelkooda waayahay ahlulkabaa'irkaasoo min ummati muxamedin nabiyullaahi moxamed ummaddiisa ka mida sala allahu calayhi wasalama allah u naxariis ziyaadiye nabadgeliyey laa yukhalladuuna lagu waari maayo fi naari naarta dhexdeeda lagu waari maayo waayahay oo ummati moxamedin maxaa loo yidhi waa dad muslimiina oo tawxiidka haysto laakiin dembigooda darteed ayay naarti ku kasbadeen marka dembigooda laga soo dhaqaa ilaahay raxmadiisa uga soo bixinaa amba shafaacatu shaafici min ajla ma horkacaba shiiqasaa qoraay u kaadi marka id wakti maatuu ay dhinteen walxaal hum ayakaba muwaxiduun iyin kuwa alla waxidaa ay ku dhahay laa ilaaha ila allah ay dhinteen tawxiidka haysto qof gaalnimo ku dhimatay laga hadli maayo ay ku tawxiidka haystay dhinteen haddii dembiilaalihin ahlukabaa'ir yihiin waa dembiga doorba ilaahi subxaana wa tacaala saa u dhaafaaye haddii loo cadaabane ku waari maayo naarta taasuu sheekh soo hormariyey wain lam yakuunuu haddii aysan ahaynuu dhahay taa'ibiina kuwa tooba keen idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum ayakaba muwaxiduuna iyiin kuwa alla waxidaayo wain lam yakuunuu yaysanba ahaaninba taa'ibiina kuwa tooba keen bacda an laquu llaha alla subxaanahu wa tacaala markay la kulmeen caarifiina xaal yihiin kuwa ilaahay ictiraafsan mu'miniina xaal yihiin kuwa ilaahay rumaysan wahum ayaka fii mashii'atihi ilaahay mashii'adiisa dhexdiisa ayay ku sugnaadeen iyo wa xukmihi ilaahay xukumkiisa dhexdiisa ay ku sugnaadeen see waay inshaa haddii alle oo doono gafara lahum dembigooda uu dhaafa wa cafaa canhum wuxuuna ku cafinaa bifadlihi ilaahay deeqdiisa iyo fadligiisa uu ku cafinaa kamaa dakara caza wajalla siduu ku sheegay fii kitaabi kitaabkiisa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wayakfiru alla subxaana wa tacaala wuu u dhaafaa maa duuna daalika ma ayuu u dhaafaa maagaasoo duuna daalika waxaas aan soo sheegnay oo gaalnimadaa ka sokeeyo liman qofkii yashaau alla uu doonaayo in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa warkaas waa cadya ahlunaara taa iyo mushrigaa taa iyo gaalaa taa iyo waxaan bidcada ila wareegeyso kulli waa baadil badaa lagu shubaa aykan waxaa leeyahay aamus diinta ka aamus diintaadin qabatay wa in shaa allah adoo doono subxaanahu wa tacaala cadabahum wuu cadaabaa dadkaasi oo ahlu kabaa'irkaa laga hadlaa weli fi naari naartuu ku cadaabaa bicadliun ku cadaabaa dulmi maahan cadaaladiisuu ku cadaabaa maxaa yeelay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduuna layidhi muslimiinay ahaayeen waa iska dhabagdhabageeyeen waajibaadkii la imaa waayeen muxaramaadkii ka leexa waayeen haddii la cadaabo bicadliha lagu cadaabo ilahay cadaaladiisuu ku cadaabo dulmi kuma cadaabin wama allaahu yuriidu dulman lilcibaadi ilahay addoomidiisa ma dulminaayo saa noo ballan qaaday maaha inay waajib ku tahay inuu sana dulmi alla waajib kuma ilah wax waajib ku ama jiro fardun cala annaasi imaamun yunsabu wamaa cala alilaahi shay-un yajib dadka muslimiinta imaamay ku abtirsadaan u baahan yihiin oo diintooda ay u tiiriyaan ilaan aqoonteen waa liidatahay
الله سبحانه وتعالى انت سو ودن لها مؤلف إلهي سبحانه وتعالى واجب كوا مجرين waxuu ku qasbiyana mar Allah subhanahu wa ta'ala wa in shaa di oo doon Allah subhanahu wa ta'ala adabahum ahlu kabaa'irku wa adaba fi an-nar naarta dhaxdeedu ku adaba bi adlihi Allah subhanahu wa ta'ala adaaladiisu ku adaba thumma kaas ka bacdina yukhrijuhum Allah subhanahu wa ta'ala ahlu kabaa'irka dadka dunuubta weyn galay laga wada oo ka soo saara minha naarti bi rahmatihi bi sababi rahmatihi naxariistiisa darteed uga soo saara allati wasi'at kulli shay naxariis ilaahi wasi'at kulli shay wax kasta waasic ku tawakkal gaaraysa naxariis ilaahi maahan wax inta la qaybsho dhax ku go'ayrahay maahan wasi'at way kala gaaraysa kulli shay wax kasta kala gaaraysa naxariista ilaahi waya ilaahi naxariis uga soo bixiyaa uu yiri sheekh wuxuu ku sii cadfay wa shafaa'ati shaafi'ina wa bi shafaa'ati shaafi'ina ku ergeynay ergadoodani waa looga soo saaraaho anbiyada ilaahi amba dadka saalixiinta ah ee shafaacada la siiyay sida shuhadada iyo dadka saalixiinta awliyada ilaahi ayaa u shafiicay qof kasta ina la siinaa shafaacay qaban karto dadka ayagoo naarta ku jira u shafiicayeen marka shafaacatu shaafiiciin waa looga soo bixina dadku la cadaab ku socoto ay leeyihiin marka ee ilaahi subxaanahu wa ta'aala ka tuugayaan in dadkaas ilaahi fadligiisa uu ku afiyo ayaga ilaahi agtiisa qiimo kule muqarribiin waa awli ilaahi waa man caada lii waliyan faqad aadantu bil harb dadka leeyahay ya والله سبحانه وتعالى مركو نبري صفات كودي وهذا كو أماني فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به قيامة حتى شرفت ضواجته إلى قرآن كسوع كل اللهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة هايكو جنة الجروء يقف نار تكو جرته وشفيعيا واي هي شافعين تاسو من أهل داعتي إلهي داعدي سأهل كيسنا إلهي إني أدعانا مهم مهني qofaan ilaahay adeecin waxay shafiici karta male ayadaaba loo cabsadaaba intabihuu marka uma markaas ka bacdini yabcahuhum allah subxaanahu wa tacaala ahlu kabaa'irka wuxuu u diraa ilaa jannatihi jannadiisa u diraa daar asalaam waa meel yaab leh jannada ilaahay ayaa loo diraa say raaxaysanayaan wadalika arrinkaas ictiqaadka biana allaha tacaala allah subxaanahu wa tacaala تولى وايهي وحو أقرقاري أهل معرفته ذاتك موحدين تاو إلهي يغان إلهي سبحانه وتعالى وأقرقاري ولم يجعلهم كما ييلين في الدارين الدنيا آخر كما ييلين الله سبحانه وتعالى كأهل نقرته كو إلهي سبحانه وتعالى إنكري أوكال كما ييلين الذين كواسو خابوا كفشل مي من هدايته إلهي هنونتيس كفشل وكواسو فإذا ما لبا waa ayaan darsadeeno waa kuwa haleeli waayey ilaahay hidaayadiisa marka fashilay ku sugan yihiin dadkaasi walam yanaalu mana gaarin min wilaayatihi alla gargaarkiisina dadkaasi ma gaarin alla gargaarkiisa iyo dadkaasi inda isaari maayaan waay allahumma waliya mu'allifka ya waliya alislaami islaamka allah u gargaaro wa ahlihi islaamka ahlkiisa allah u gargaaro thabitna nugu sug على الإسلام إسلام لماذا نقصك حتى نلقاك به لا أنك لا كلنا ساسو كدعي الشيخ إلهنا وأقبله ويا ونرى أنك وحن رأيين نولي مؤلفك الصلاة صلاة جائزة يكون بنانتها خلف كل بر متكستو أو قلو عن إن يكون بنانتها ويا خلف كل بر متكستو قلو عن أو حن أو هجاج سنين أي يكون بنانتها وفاجر متكستو حد قدبي asigana qalooc laga sheegay waaya qalooc xadhiin waxa leedahay kulla barin mid kasta ee toosan ee wanaagsan saad waa lagu xiri karaa wa faajirin mid kasta ee qaloocan ee xid dhaafayna salaada waa lagu xiri karaa sabab banaantu u leeyahay marka kitaabadu waxay dhigi jireen karaahiye waay marka sheekha inuu karaahiye diiday maahan laakiin salaada way banaan tahay waay ku qabatay qadar la wala qaatahay hadii maanta ay ka furso weyso in aad maaragtay salaadii ka tagayso oo imaamku uu noqdo bidci laakiin xadgudub aadan ku ogeyn hadda bidcada hadda joogto qaarkood waa khawaarijo Allah subhanahu wa ta'ala sifaadkiisana maalcaday 6 saac ku tumanayaan dadka salaada ku xirnaan waxay ka aaminsan inay gaariyiin qofka dooheerkaas joogo salaada ma lagu xirnaa laakiin bidci hunguri iska wado iswar walaaqaayo oo warkiisa meelo jir aan loogeyno oo isaga dhanba laba socota aduu yahay salaada waa la isaga xiraa walow karaayi bahaatee qaabkaas loo kala fiiraa marka khawaarijta lagu xirmaa duliga bidcada waxa laga hadlaa ay ka sokayso ilaan waa magacyo badan waa ogtiin adika
inaan meeshaan ka tiriya ma rabo balaayo magac badan waxa ahlu sunna wal jamaa ahayn dhuma loo cabsaha ahlu sunna wal jamaa wax ka soo hadaan cala idlaaq waxa waaye al ashaa'ira wal maturidiyya rahmatullahi alayhim ونرى وحوليا مركا إمامك وحن رأيين صلاة جائزة يكون بنانتا خلف كل بر متكستو وناكسن أو بارية أو إلهي أضياعي قداش سيكون بنانتا وفاجر متكستو فاسقة نكان توغني ما كوكتا بينا كوكتا حمبضنا كوكتا فاجر ساسوكويا إن صلاة دلوحر تأسين وبنانتا ما في عن لكن وحكروا فاجر كويا دور وابدعي صلاة سيحروا لكن وكرهي مربو وايهي فاجر كاس إبرقاس أو من أهل القبلة كمذا قبلة أهل كذا كمذا قف كان وادو كذا لكن وقاب دريني قف كان وادو كذا وأنا في عين لو صاد وكو حركتها هذه اللي بدو ذكر الدور القرآني وأنا قفك في عن أتكو حركتها واي بدعي أهل السنة اسكو دور سميست نين فاجرة يا نين مضيعة وإلهي أضيع عين اسكو دور سميست صادنا كو حركته مركو حرشة سيا لك وحكو كيني إني كراهيتها دات فاجر كو حركتها ببدعي وغيران haddii kan waa qaab daran yaa doorabo salaadii bin xaji karamaano asoon weysa qabno iska dukaa bidaada qaabka u dhaqmo kala fiirsho inay weysa qabana ka shakiinayba amba salayaasha ku dukanaa masaajidooda inay daahiriyeen kabay la galayeen marka baraka daraas badan da aragtane banaanka imaamada la dhigtaa way warkooda laga baxaa waaya wuxuu leeyahay muallifka marka wa calaamadna waa ra'yeyna in lagu dukanayo maanta dhintay minhum xaalu kamid yahay qibla qof ahlu qibla kamida ayaa dhintay wala iskaga dukanaa faajir ha aado bidci ha aado maxaa yeelay saacadaas saaba ducada u baahanba in asiga liiraad allahumma ighfir lahu warhamhu asaamu dhanba ilaa ma bujeedaa inuu dambiila soo dhintay marka waa lagu dukanaa qofkaas laakiin qofka doo gaal yahay wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ma ysawarkiis ku dhamaad waayahay wala nunzilu ahadan minhum جنة ولا نارا ولا ننزل من دجينين أحد كاسوا منهم أهل قبلها كمذا جنة مدجينين ولا نار مدجينين من دي سبيل أهل الجنة من دي سبيل أهل النار من دي دقدتها سجلنا دق ولا نشهد من قرينو عليهم ذاتك أهل قبلها دشوضة بكفر قالني مكو قرينو ولا بشرك شركنا مكو قرينو قالوا وايدهمين سيداد خوارجت اي سمين عمل ولا بنفاق منافق نمان مكو قرينو ما مدو لم يظهر شيء اوسن كظاهرين منهم ايغا حقوده هو من ذلك ارنكاس مذكورات كامده هدي كفر وكظاهره وقالوا باللي هدو الشرك ظاهره شرك وقال لي هدو منافق نمان كظاهره ومنافق باللي لكن هدو سن كظاهرين قفكنا اسك عربكاغا رذيل نقطه ورسك تورته لما ربوا إن أسئلة سيدا لو باهي ونذر وانا كتجينا ودهاي سرائرهم ضدك مخلوقة أو أهل قبلة وحيابها أقرصون أنا كتجينا إلى الله تعالى وكتجينا نحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر ولا نرى أنا كمرة يينينو السيف سيف على أحد في سيف لا صار أنا كمرة يين أحد كاسو من أمة محمد نبي الله محمد أمدي سكمده صلى الله عليه وسلم إلا من قف معنا وجب عليه سيفه سيفتي واجبت قف سيفتي واجبت ما هني أنا كسيد خوارجت وكلهم منه قف كسديله يا إن أخوف ما أخاف عليكم النبي عليه الصلاة والسلام وحي يقعب سيد بدن لو أديك قعب سنة رجل يقرأ القرآن قف قرآن كآخرنا حدنا درس كيس كل الدقدقة يا سيف ده هايو قال واي يديله أصحابته ويدين مكو عدين الرامي أو المرمي يا رسول الله مثل قال واي دخل كل أردى سيفت مياه قال ما سكن كله إلا فقط بقى أحدهما واي نبي حوله الرامي كان جمعي وأفكيس قال لنا الجب حلا سيفت الأردى دخل دي له قرآن وآخره يد مركز تي وبرات تكال هذا الأرك قرآن ولا آخرنا لكن ذاتك المسلمين تيجي يقولون لبنا يستال روا قالوا ولا دلو مكسفة الخوارج وشيء غديدين هي أهل السنة والجماعة ما كان قد واكنا ولا نرى وحوري من الرأيينينو الصيف سيف على أحد وش اسمه كل رأيينينو أحد كاسو من أمة محمد كمية صلى الله عليه وسلم إلا من قف معنا وجب من كاسو وجب عليه سيفتي واجبتي قفوا دل ولا دله سيف واجبينه نعم ويا ولا نرى من رأيينينو الخروج إن لقبحوا على أئمتنا مدحدينا نمدحويناه في عن الله دورتي أو هدنا سيف عن ذلك ودقايو إن اللي يرادو كبيس كره اللوجا ماتي
waddanka laga bixiyo marka ma loo baahno dagaal iyo weerar cirka dhulkaa lagu qaado wa wulaati umuurina annaka arrimahayna dadka wulaadda oo madaxda ka ah in lagu baxaan annaka ma ra'yeenin ahlusunna wal jamaca say qabtaade xataa in madaxweyne loo naqon karo oo dowlad haddii hadda maanta aan helno waxay ka dhisnaalaada waa dareemi kartiin ahlusunna wal jamaca maan sheekoo saanu kula dardaarmay imaamu daxaawi waa ogolnaa dowladda timaado inayna hagto haddaysan gaalnimo caddaysanayn laakiin nimankan khawaarijda dadka ka qarxinayo waxay ogol yihiin anakana ma naqaano adinkana ma taqaaniin ilaahay yaqaan laakiin sida ka muuqato oo diinta caddaynayso waxa ay ku socdaan wax diinta islaamka madkhal kule maaha walaa naraa ma ra'yeynayno alkhuruuj in lagu baxo oo weerar lagu qaado ka wadaa dagaal calaa a'immatina anaka a'immadeena madaxdeena dagaal lagu qaado ma qabno ma ra'yeynayno wa wulaati umuurina anaka arrimahayna kuwa tawalinayna in weerar lagu qaado ma qabno wa in jaaruu hadday rabaanba dulmi ha sameeyaan hadday rabaan walaa nadcuu calayhi mana habaarayno oo saas allah yeela dhihi mayno in loo duceeyaa la rabaa ummaddaanay madax u yihiin si ummaddu badbaado haddii habaar lagula degdego barakad allah ka qaada la adiga ummadday madax u yihin ummadday sii dhibayn waaya sheekha saas uu hadla waay walaa nanzacu yaddan min daacatihim inaan adeecayna gacmaha ka laaba mayno hadday rabaan in wax lala shaqeeya xataa waa la shaqeyna dheh laakiin sida bidcadii albaaba inta u istaagno ka tuugsamayno ee baadil u iftoomayno warkiisu cadiya sheekh walaa nanzac wuxuu ka wadaa yaddan ka gacmo laaba mayno min daacatihim in la adeeco oo dadka markaas waxaan leenahay adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli amri minkum sasaan leenaho dheh wanaraa waxaan ra'yeynaynaa weliba hadduu wataa sheekha daacatahum ayaga in la adeeco min daacati illah ilaahay daacadiisa in lagu adeeco laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq u dha nabiga alayhi salatu wasalaam laa daacata limakhluuqin makhluuq lagu adeeci maayo fii macsiyati alkhaaliqi allah khaaliqa ah in la caasiyo lagu adeeci maayo qof makhluuqa mahma kaana u xurbaado lagu adeeci maayo wanaraa waxaan ra'yeynaa daacatahum ayaga in la adeeco min daacati illah ilahay daacadiisa in lagu adeeco caza wajal fariidatan xaal ay tahay mid waajib weliba ilahay daacaddiisa in lagu adeeco waa waajib intii ayaga daacadda ilahay ku sugan yihin waa lagu adeeca waan la sameynaa maa lam ya'muruu haddaysan amraynin bimacsiyatin macsi haddaysan amraynin xadiidkii lagu socda sheekha ma fahamti wanadcuu lahum uu leeya mualifka marka waana ugu duceynaynaa bisalaaxi wanaagaan ugu duceeynaa le waxqabad hawsha laa fudana garkooda la galan lena hori walmucaafaat caafimaadna ugu duceeynaa hori sheekha marka ahlusunna waljamaca haddii aanaka qaabkaas ayay culammadeena nooga tageen salaf saanay qabtay dadka salaf sheegahaya marka oo dowladda timaadaba yacni bamba u laalayhay salaf sii qabtay ayaga sii qabeen isbarbardhig marka maxaa kuu soo baxaya salaf ayaga inay la wada kala mareen shaqaba iskuma laba baadiya ku sugan yihin marka iyo tahluug ilaah naga muutiyey wanadcuu lahum aimadaas waa u duceeyna u dhahay bisalaax hagaagan ugu duceeyeynaa because dii hagaagsamaan dalka iyo dadka hagaagsami lahay iyo walmucaafaati caafimaadne waa ugu duceeyeynaa allahuma habitna calى nahji sayidina mxamed waasxaabih wslى اllah wslm عlى sayidina mxamedi waalihi wasaxbi ajmaciin wailى liqa wasalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala wbarakaatuh